su-aashaas waxay tahay shiikhow ma bannaan tahay in jinka lala shaqaysto oo la adeegsado hada su-aal muhim in jinka la adeegsado oo lala shaqaysto oo lala mucaamalooda ma bannaan tahay sideedaba horta qaacido qaado jinku hadduu mu'min yahay alla yaqaana oon mufsid ahayn xuduuddiisa ma soo dhaafo jin ilaahay ka baqanaya hadduu yahay ma soo farageliyo dhaqanka makhluuqaadka bini aadmiga waxna uma sheego lamana mucaamaloodo haddaad aragto jin khalqiga la mucaamaloonaya waa jin xadhka goysa oo faduuliya oo xuduudda ilaahay aan ku dabroonayn ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu inooga warramay waaqicado badan iyo dhacdooyin badan oo zamankii rasuulka dhacay calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu la kulmay maalintii dagaalka beder waa wada xasuusataan dagaalkaa beder 313 bay muslimiintu ahaayeen arladan waxaa inagula noolaa jinkii muslimiinta ahaa waid sarafnaa ilayka nafara min aljin way joogeen dhulka qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljin jinkii maalintaa muslimay arladan way joogeen muslimiintuna cidhiidhi bay ku jirtay taageero iyo hiilna way u baahnayd ilaahay wuxuu awoodi karay inuu jimankii muslimiintaha amar siiyo uu yidhaahdo dagaalkan ka qayb gala muslimiinta u hiiliya lama dirin fowqa 7 samaawaat ba malaa'igta baran fadribuu fowqa alacnaaq wadribuu minhum kulla banaan daqiiqada gudahood baa malaa'igta lagu tababaray malaa'igtii cibaadaysanaysay malag walbaaba waxa inta qusaysa unbuu aqoon yaqaanaa laa cilma lana ilaa maa callamtana malagaa nafta qaadaa sida arsaaqda loo qaybiya waxba kama yaqaan malagaa arsaaqda qaybiya sida jannada loo maamulo waxba kama yaqaan sida naarta loo maamulo maalik baa iska haysta oo ridwaan baa jannada iska haysta malakul mawt baa wuxuu isagu khusaysaa naf un sida loo qaado ama daayeer ha ka qaado ama dacawo ha ka qaado ama bini aadmi ha ka qaado ama quraanjo ha ka qaado naf walba sida loo dilo waa yaqaan ee nafta looga qaado waxaan intaa ahayn waxba kama khuseeyaan waana taa iyaguba gacanta ka taageenoo laa cilma lana ilaa maa callamtana malaa'igtii loo baahday inay maalintaa dagaalka badar ay gasho intuu ilaahay shiriyey buu tababar u furay wuxuu yidhi gala dagaalka oo weliba bini aadmigu halkuu u dhintaa waa luqunta iyo meelahaase halkaa kala eegta seefaha fadribuu fowqa alacnaaq wadribuu minhum kulla banaan halka xubnahana ka gooya si ay u laangaraystaan oo u naafooba dagaalkaanay wadi karin maalintaa malaa'ig baa ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala maalintii dagaalkii khandaqa la odhanayay waa idinkii wada xasuusta iyadoo dhaxan laxaadli dhacayso oo gaaladii 10,000 iyo dheeraad isku weer ka hayaan madiina ayaa rasuulkeennu wuxuu u baahday waryaa gaalada iiga warkeenaya war gaalada yaa iiga warkeenaya nin waliba dhaxantii buu kici kari laayahay waa la iswada nabay cidda hadlaysaana waa rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay wuxuu awoodi karay inuu shayaadiintii muslimiinta ahayd uu yidhaahdo war idinkaan laydin arkayne ordayoo gaalada iga warkeena ma yeelin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qum yaa xudayfa xudayfow kac buu ku yidhi waa kii xudayfa ka warkeenay nebigu calayhi salaatu wasalaam waan ka warrami doonnaa isagoo faahfaahsana markuu shaydaanku soo weeraray isagoo salaada ku jira salaatuleyl tukanaya ee uu doonay inuu dhimbiil daba madaxa u saaro nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu waa kii qabtay calayhi salaatu wasalaam halkaa cunahan ku dhegay buu yidhi markaasaa dhareerkii ka soo daatay qabowgiisu gacantayda ay soo gaadhay waan ka adkaaday waan qabtay waxaan damcay inaan ku xidho saariya min siwaari almasjid in tiirarka masaajidka ka mid ah aan ku xidhaan damcay markaasaa waxaan xasuustay buu yidhi walaalkay sulaymaan calayhi salaatu wasalaam dalabku ilaahay weydiistay oo ahaa qaala rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdihi
waxay yidhaahdaan culimmadu ilaa nebiyullaahi sulaymaan wixii ka dambeeyey weligeed nin shaytaan ama jin adeegsaday oo ka faa'iiday lama arag taariikhda dib u raaca inta nuuraaniyaadku la shaqaysan jireen ayaama ayay buunbuuniyaan kabacdina way ka guuraan ayaamay buunbuuniyaan kabacdina way ka guuraan haddaanay dilinba haddaanay dhibaato u geysanba marka haddii nimankaa waxaa ku heshiiseen sida loola heshiiyey iyo sida loo dalbado iyo taxdiiru alarwaaxa iyo waxaasna waan ka hadli doonaa insha allah hadday nafti igu sinto casharkeenu ku jiri doonaa haddii in yar oo tallaabo ah nimankaas aad wacadkaadooda dhigateen aad ka baxdo khalaas dagaal bay kugu qaadayaan laba yani sheeko oo xaqiiqo oo dhacday baan idinka warramayaa masaajidkan aynu ku jirro masaajidkii calmataan soo maaha guryahan iminka albeerkadu maxamed ka dhisan tahay guryo yaryaroo gaagaaban bay ahaan jireen baaniyaaladii waxaa jiri jiray markaa nin hindiya baaniyaal ah oo wuxuu samayn jiray xaafadaha ayaa wuxuu u samayn jiray furaashadii berigii hore lagu seexan jiray cudbi baa lagu cabayn jiray marka furaashka cudbida lagu cabeeyo marka muddo lagu seexdo way isku dhegi jirtay hadhow inta maro cusub la soo iibiyo ayaa cudbida laga furaya cudbidii markaa waa la feedhayaa waa la garaacayaa markii kala furfurato ayaa maradii cusbayd lagu xidhi jiray deedna dib baa loo moorin jiray lacag buu ka qaadan jiray markaa shaqadiisu intaasay ahayd jimankana wuu la shaqaysan jiray ninkaas waa xaqiiqo dhacday weeye deedna ninkaas wuxuu sameeyey wan buu suuqa sayladda waxay ahayd halkan imika tiyaatarka halkan tiyaatarku imika uu ku yaallo baa sayladda hargeysa ahaan jirtay intuu halkan tegey buu wan soo iibiyey oo rabay inuu u qalo shayaadiintiisa wankii oo ugu xidhnaa geed waa la gooyey ku haryaalay maxaanku dhaha dukaanadaas ayaa waxaa soo gashay jimca barkhadlihii oo waxaa jiri jirtay sanadkii hal mar baa maxaanku dhaha sheekh yuusuf alkownayn raxmatullahi caleyh ayaa dadku ku aafaysnaayeen oo la siyaaran jiray oo la tegi jiray oo maxaanku dhaha wax lagu qalqali jiray oo halkaasaa lagu dhafri jiray 3 maalmood wankaas wuxuu damcay inuu markaa halkaa geeyo wankii oo u xidhan yaan kaa qaldan nimankanuu rabay inuu u gowraco jimca barkhadlii baa soo galay dabeedna wuxuu geeyey halkii maxaanku dhaha qabriga wuu u gowracay uu iskaga soo noqday guriga kelidii baa degan hoostuu ka xidhay deedna waxay u yimaadeen faamalaydh waxa la yidhaha baa laga samayn jiray aqalka dushiisa oo faamalaydhkii baa uga soo daateen way toosiyeen isagoo hordaa markaasay ku yidhahaan waryaahe wankii aad noogu ballan qaaday markaasuu yidhi waxaan go'aansaday wankaana inaan halkaa ku gowraco idina wan kale aan idiin iibiyo markaasaa waxay yidhaahdeen wankii aad naga bixisay badhidiisa wan badhidaasoo kale leh ifkaba ma joogay maxaad yeeli wankii aad bixisay ee annaga nagu hunguri gelisay ifkaba ma yaalo badhidiisa wax lihi haye waxay yidhaahdeen maxkamad baa lagu saaray aad ka maqan tahay adoo ka maqan ninka nala socdaana waa dhakhtarkii waa dhakhtar waxau ninkii aa wada shaqaysanaysana wacadka wada gasheen wuxuu go'aamiyey inta ilig kugu taalloo dhan in lagaa saaro dhammaan 30 iligba dhulkaa laga dhigay xabad dhiigii kama iman ninkaa xabad intii ilkoo dhan laga soo saaray aroortii buu toosay 30 iligoo miiska u saaran xabad dhiigina kama iman muddu markaa ilkala ilaa bil deedna ambiil baa loo qaaday maxkamaddii baa ambiil u qaaday waxay yidhahdeen ninkan ilkaha loo geliyo ilaa ilkiisii hore laguma celin karo ilkaha loo geliyo way yimaadeen waxay yidhahdeen waryaahe maxkamaddii ambiil baa lagu qaaday waxaa la go'aansaday in ilka saqafa lagu geliyo waanu soo baayacnay marka wax ilkaha hagaajiyana berbere keliyaa jirta hargeysa waxaas ilkaha laguma yaqaano berbere keliya lagu sameeyaa waxay yidhaahdeen waanu soo qiimaynay sadafkii ilkaha
waxay noqotay 6 shilin bay 600 shilin ayay noqotay 600 shilin wakaas noolkaagii go and back wakaas dhaqaaji orodii ka barbar ka soo gasho sidiiba markaa ninkii ilka saqafa kula haan jiray dabadeedna ku halaagsamay markii dambe marka haddii bahalladan aad baabkooda gasho waan ka warramaynaa albaabkooda sida loo garaaco albaab la galay leeyihiin laakiin lagama bixi karo albaabkooda lagama bixi karo Somaliland dhammaanteed subaxdii iftiintaba soo gashaa siraadka iyo internetu sida suuqyada magaalada ganacsigaas sumaya sixirada ascaarta iyo sarifka dhex yaala waxay saanta haystaan internet ilaa sugan oo marqura goyn hadduu ganacsigaagu korayo khibrada adduunyada sharar aad la gelineed waddan kale aad oo tegay kharashkaaga bixin baad internet adeegsan oo soo gashaa awood badan feebarkeedu saxan yahay ganacsigana u gaar yahay qoys lagama maarmay guriga iyo carruurta iyo madadaaladooda mar kastaba muhiime markay soo gasho helaan bay muxubbada mabsuudaan maankaaga geliyo internet hamoogaan gurigaaga soo gela wireless speed badan feebarkuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaaga oo caalamka la jaanqaad mayfay awood badan dharaariya habeenkii hadduu isticmaalkaagu badan yahay daatadiisu xadid ma le mashquul iyo dhammaad ma leh mar qudhaata gu'id ma leh haddaad gaadho suuq iyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba soobaa isgaadhsiin gurigaaga baahnayn ruutir kugu xidheenoo hawadaada keento kugu tidhi wayfaygaaga furo oo isticmaal la dabadeed hotspot sbiid badan soo gasho waa shirkadda koobaad ee Somaliland hogaaminaysa isgaarsiinta internetka fiber optiga ka ganacsiga iyo ka guryaha iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee shirkadda soo ay bixiso internet awood badan oo fiberka ah wax ku baro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo meel walba